nin boqor ayaa wuxuu lahaa nin la taliye la taliyuhu waa mu'mine ogow waa nin qadarka aaminsan maalin baa mar walbo ninkan boqorka ee balaayo ku dhacdo ama gabar ay ka dhimato dhaawac soo gaaro dhib uu yimaado ninka maadaama la taliyaha uu yahay wasiirkiisa wuu u tagaa madaxu u salaaxa wuxuu yiraahdaa usbur la'allahu khayr inay khayr taa laga yaabaa laakiin ninkan mu'min ma aha boqorka kelimadii wuu dhibsanayaa gabar baa ka dhimatay taloo yimaada leeyahay la'allahu khayr ruwaaside gabar baa iga dhimatay la'allahu khayr say khayr ku tahay gabar baa iga dhimatay ninkan waa doodaya hadhow haddana wiil baa dhimanaya la'allahu khayr usbur sabir ninki marka wuxuu xoogaha dhibsaday ninkan iyo khayrka uu sheegay la'allahu khayrtiisan uu yara dhibsaday isagoo khaatiyan ka taagan baa maalin safar la aaday hunting ugaad in banaanka laga soo yaro ugaarto xoogaha xayawaan sagaaro ama bakayle ama something adi iyagoo la cayrinaayo oo la daba ordayo oo xagga ka mara qabta la leeyahay boqorka nin yaro ladana wuu ahaa buurane ayaa wuu turanturooday kadibna wuu kufay waxaa kufaya waa kii boqorkii mar allaala markuu boqorkii kufay wuu dilaan diloobi si u gadgadoomaayey hog ama god buu madaxa la galay marka goduu ku dhex dhacay intuu godka ku sii socday far baa jabaysa fartaa yar ayaa jabtay boqorkii fartii baa jabtay wuu xanuunsaday dhiig baa ka da-aya fartuna waa jaban tahay ninkii la taliyaha caadadiisu maxay ahayd la'allahu godkii buu kala hadlayaa uu leeyahay boqoro waa lagaa soo bixinayaa godkane sabir la'allahu khayr ninka waa xanuunsanayaa markaasuu saas usoo fiiriyey boqorkii markaasuu yidhi war far baa i jaban maanta wuxuu yidhi la'allahu khayr inay taa laga yaaba fartan jaban iyo godka aad ku dhacday aad buu u xanaaqay marka waa laga soo bixiyey godkii boqorka waa musiibo inagoo dhan ina wada qabsata soo maha markii banaanka la keenay dhakhtar baa loola soo orday waxaaba ugu darnayd markii dhakhtarkii yidhi fartan waa la goynayaa wuu naxay markaasuu la taliyihiisii fiirsaday wuu fiiriyey wuxuu yidhi war dhakhtarka wuxuu leeyahay ma aragtaa fartaa lagaa goynaa uu leeyahay wuxuu yidhi dhib ma leh la'allahu khayr farta in lagaa gooyo khayra laga yaabaa aad buu xanaaq wuxuu yidhi war inkaan qabahan ya oo wax walbaba inaad dhintuuba rabaaba ninkan wax walba khayro war ha la xiro ha la geeyo xabiska shaqadii ha laga cayriyo reerkiisii ha laga fogeeyo intee dhibaataa la isugu daray ninkan waa maroo waa in la xiro waa mar labaadoo in shaqadii laga joojiyo waa mar saddexaadoo in reerkiisii iyo ciyaalkiisii kuwuu qalbiga ku qabowsanayay in laga fogeeyo saddex dhibaata soo maaha muxuu yidhi laakiin markii la xiray ayaa wuxuu yidhi boqorow intaasoo dhiboo aad ii geysatay la'allahu khayr carabkiisa waxa uu bartay carabkiisa hadalka wanaagsan uu bartay fiiri carabkaaga waa inaad tababartaa carabkaaga waa inaad khayrka bartaa la'allahu khayr wax walboo ku qabsada la'allahu khayr qada haddaad weydid la'allahu khayr haddaad xanuunsatid la'allahu khayr lagaa dhinto la'allahu khayr shaqo weydid la'allahu khayr waquluu linnaasi maxaa la yidhi xusnan hadalka nin baa u yimid rasuulka salawatu llahi wasalaamu caleyh caraabi wuxuu yihi rasuul allow ii sheeg hal shay oo aan jannada ku galo shay i geeyo jannada ii sheeg wuxuu yidhi hagaaji hadalkaaga carabkaaga yaanu afkaaga ka soo bixin ilaa khayr maahane jannaad gelaysaaye dadka taasay ku tartami jireen annagana waad aragtaan afkeenna wax ka soo baxaayo soo ma khayrku waa yar yahay khayrku waa yar yahay marka ninkii wuxuu yidhi la'allahu khayr boqorow war oroduu yidhi khayr ha kuu noqoto xabiskee orod ninkii waa la xiray boqorkii gacantii baa la gooyey gacantii marka la gooyey kadib maxaa dhacay waa u raysatay gacantii markay raysatay dee nina caadadii kama tago wuxuu doonay inuu ugaadhii ku noqdo haddana laakiin maanta lama jiro wasiirkii xakiimka ahaa
mu'minka ahaa lama socdo askar kalaa la socotay kuwa aan khayr lahayn kadibna waa la baxay sidii loo socday bakaylihii ama sagaaradii ama eeladii loo cayrinayey waxaa ka hor yimid xadkii bay dhaafeen xadkiisii boqorka wuu ka gudbay waxaa ka hor yimid qolo hergaanti ah yacni waa cid kale oo ciidamo ah oo boqor kale leh oo ilaah ay caabudaan u raadinayo qurbaan yacni qoladaas waxay caabudaa asnaan bay caabudaan sanamka marka sanad walba waxaa loo gowracaa qof insaan ah qof insaana la xirxirayaa kadibna waa la seexinayaa ninkii waa la gowracayaa dhiiggiisiyaa la marmarinayaa markaasuu ilaaha sanamka ah khayrkiisii soo daadinayaa haddii roob ay rabaan sanamkaa keenaaya webiga hadduu guro waa keenayaa roobkii guurkii farxaddii waxay gaaladu aaminsan yihiin wax ka jirana male laakiin ilaahay baa ku cadaabaya qolo marka ilaahoodii sanadkii baa la gaaray u raadinaya qurbaan oo ordaya ayaa waxay arkeen dee ninkanoo boqor ahoo iska cayilan oo buuran ya oo ay dadkoo yarna la socdaan geesiyaa laga galay askartii waaba carareenba bigtii horeba way carareen keligiibaa ma ordi kara ninkan marka waa la qabtay boqorkii waa la xirxiray garbaha la saartay sida sagaaradii ilaahay baa loo geeyey waa la hoos seexiyey ninka waa yaaban yahay wuu arkaa in mindiyihii iyo seefihii agtiisa lagu afaynayo jararaf maalihii in la gowracaa la rabaa nolol waa u dhammaatay ninkii marka khalaas wuu isdhiibay wuxuu isku dhiibay dee nin mindi agtiisa lagu afaynayo ka war wuxuu is yidhi maanta ciidamadiina waa ka carareen cir kaa fog dhul kaa fog wax ku badbaadin kara maanta ma leh lacalahu khayrna ma yaqaana soo maha ninkii waa isdhiibay noloshiiuu ku dhintayba naftii un baanan ka bixin laakiin dareenkii oo dhanaa ka tegey haddaad gowracaysid iyo haddaad jarjaraysidba waxba ma dareemaya wuu quustay qalbigii baa dhintay dad nolosha ku dhintay soo ma jiraan wuu iska yaallaa marka waxaa loo keenay dhakhtar waa inuu ilaaha waxa loo gowracayo waa inuu saliim ahaadaa oo uu dhamaystirnaadaa dhakhtarkii baa lugaha ka fiiriyey lugihiisi waa dhamaystiran yihiin lugihiisii cajirihiisii dhexdiisii si u waday ilaa iyo gacmihii markii dambe dhakhtarki wuxuu arkay fartiyo go-an ayuu arkay markaasaa wuxuu or stop joojiya ninkan lama gowrici kara waa naaqis yani udxiyadan qurbaankan waa naaqis far baa go-an ilaahna looma gowraco wax naaqis ah yaa maqlaya hadalkaa dhakhtarku uu leeyahay boqorkii markaasaa noloshii baa kusoo noqotay dhaqdhaqaaquu bilaabay war ninka sidaa dhahaya ninkan lama gowracayo waa kii bal kor u fiiri waa dhakhtar ninkii baa dhaqdhaqaaq bilaabay waxaa la yidhi ninka hala furo dhulkiisiina ha ku noqdo ninkii waa ilahay baan kugu dhaariyey ninka marka xarkihii laga furay waxa ugu horeeya waa su-aalay ogaada waxa ugu horeeya oo qalbigiisa kusoo dhacaya waa maxay lacalahu hadalkii ninkii wasiirka ahaa ayaa qalbigiisii kusoo dhacay wuu farxay waa la daayey orodku meesha ka soo bilaabay reerkiisii kuma leexanin boqorkii xagguu aaday xabiskii war ninkii wasiirka ahaa xakiimka ahaa mu'minka ahaa ninkii i badbaadiyey ninkii askartii keena furaha keena askartii kuma daynin isagii baa ka furaaya ninkii markuu furay boqorki wasiirku waa yaaban yahay war ninka maxaa dhacay maanta ma ku deldeli rabaa miyuu ku deli rabaa ninkii buu isku duubay wuu ku ooyey wuu yaaban yahay ninkii war bal soo bax xabiska ka soo bax war waa sidee boqor sidaan kuguma ogeyne adigoo ilacnadaaya oo ayaad ixirtay waa maxay farxaddan wuxuu yihi oniya waa i badbaadisay ma aniga xabiska ku jiraa ku badbaadiyey haye bal ii waran oo ii sheek wuxuu yihi arrintii buu uga sheekeeyey wuxuu yihi maalinkaa idhaysay lacalahu khayr fartaa la gooynayo lacalahu khayr inuu ilaahay khayr kaaga dhiga laga yaabaa wallaahi khayr buu ilaahay iiga dhigay waana i badbaadisay oo fartaas maanta hadday igu ooli lahayd maanta adduunye ma joogena waa la gowrici lahaa
laakiin fartaas ayaa ilaahay ugu badbaadiyey laakiin su-aal baan ku weydiinayaa wasiirow markaan ku xirayey anigoo ku xiray shaqadaadii kaa cayriyey reerkaagii maaragtaaye kaa fogeeyey ayaad i tustay oo aad i tiri lacalahu khayr boqoro waxaad igu samaysay khayr inay ii taha laga yaabaa aniga taydii la garay laakiin xabiska waa maxay khayrka xabiska ku jiro waa maxay wuxuu yidhi maanta haddaan waad og tahay buu yidhi aniga nin geesi ayaan ahay daacad kuu ah kaama carareen markii ciidamadaasi qolada hergaantida ay ku qabatay maahi kuwan xaabadan fulayaalka ah ee kaa cararay maahi naftaan ku duldhigi lahaa ani adiga waa nala wada qaban lahaa adiga fartaasaa ku badbaadi lahayd laakiin anigu nin dhammaystiran ayaan ahay anaa la igowrici lahaa marka inaad iska kay reebtid oo aad weliba xabis guriga haddaan joogi lahaa kaama hareena waa kusoo dabageli lahaa aad xabis intaa igelisid bir igu xirtid ya oo aanan soo bixi karin khayr bay ii ahaydoo adiguna waa i badbaadisay may fahamteen nin walba qadarkii u aaminay soo ma arktid marka lacalahu khayr shar waxaad umalaynaysid baa ilaahay khayr kaaga dhigi karaa marka ha quusanin addoontii allay ha culayskan ha ka quusan yaanu quus ku gelin culayskan